gabanaha ismaamulka Gaarisa Mudane Nadiif Aadan Jaamac ayaa shalay xarunta dawladda hoose ee magaalada Gaarisa kula kulmay dallada ay ku mideysan yihiin beeraleyda ismaamulka Gaarisa waxaana si rasmi ah loogu wareejiyay 3 mooto oo cusub dallada beeraleyda Gaarisa kadib munaasabad ka dhacday xarunta dawladda hoose ee magaalada halkaas oo ay goobjoog ka ahayeen mas'uuliyiinta ugu sarreeya ee dawladda mootooyinkan ayaa loogu talagalay in lagu taageero howlaha maalinlaha ah ee beeraleyda si gaar ahaaneed dhanka wacyigelinta fidinta adeegyada iyo saameynta xaaladaha beeraleyda ee ku sugan magaalada Gaarisa gabanaha ayaa sheegay in mootooyinkan ay yihiin qayb ka mid ah ballanqaadyadii hore uga qaaday isagoo ujeedadiisu ay tahay sidii loo horumarin lahaa kaabayaasha beeraleyda gobolka looguna sahli lahaa shaqadooda dhinaca kale gabanaha ayaa waxa uu mahadceliyay dallada beeraleyda ismaamulka Gaarisa dadaalada ay ku bixinayaan horumarinta nolosha beeraleyda isagoo xusay in doorkoodu yahay mid lafdhabar u ah horumarinta dhaqaalaha ismaamulka Gaarisa mootooyinka la bixiyay ayaa la filayaa inay kor u qaadaan howlgallada la xiriira gaarsiinta adeegyada dhulka gaar ahaan meelaha fogfog taasoo horseedi doonta in beeraleyda Gaarisa ay helaan talooyin xilli iyo xaalad ku habboon madaxa dallada ay ku mideysan yihiin beeraleyda Gaarisa ayaa si weyn ugu mahadceliyay taageerida uu u fidiyay gabanaha ismaamulka Gaarisa waxayna ballan qaadeen in ay si hufan ugu adeegi doonaan bulshada Gaarisa ayna la jaan qaadi doonaan horumarka gobolka munaasabadan ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ah xogayaha ismaamulka Gaarisa Mudane Maxamed Mursal madaxa sare ee shabakada beeraleyda ismaamulka Gaarisa oo uu horkacay gudoomiyaha shabakadaasi Cabdullaahi Cabdi iyo xogayaha guud ee ismaamulka Gaarisa Ceebla Aadan. This is a very important day. We are here, as you can see, I'm here together with the management leadership of the Gaarisa Farmers Network. I have the chairman, my brother Abdullahi Abdi, and also my sister Ebla, the secretary to the network. We are here today, as you can see, we are giving out as a county government 3 motorbikes to very important young men who have been doing a lot for the sector. They require to be mobile. These 3 men require to be mobile every now and then to support the farmers in terms of their day-to-day requirements. And therefore they requested from me to provide them or to support them with motorbikes, and that promise is what I'm fulfilling today. So I'm happy that they will now be mobile enough to continue their good works for the farming fraternity. Asanteni sana, and I want to say that we're extremely happy with what the network is doing under the leadership of Brother Abdullahi and Ebla, the secretary. We know that really you as a network, you have played a very important role. You have improved the farming fraternity in terms of supporting our farmers and even the livestock sector as well. Kwa hivyo hongera hiyo kazi vizuri, and we as a county government will continue to support as much as possible. Asanteni sana.